بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaa inoo suurto gashay inaan soo kormeerno oo nalagu casuumay qaabka loo saxay imtixaamaadkii dugsiyada dhexe ee gobolka Banaadir runtiina waxyaabihii aan aragnay waxyaabo aad iyo aad noo dhiirigeliyay waaye marka aad fiirisid kor u qaadista ama hubinta dhalinyarada ama ardayda dadaashay oo imtixaamaadkooda inuu noqdaan mid oo suurtagal ka dhigo inay natiijada ay dadaalkooda ku helaan runtii nidaamka markii sharaxaadna la siiyay iyo aan kormeerkeena ku fiirin ku aragnay waxyaabaha noo soo baxay runtii waxay ahayd in maanta imtixaamaadkaas natiijada ka soo baxday uu yahay natiijo ku yimid nidaamka imtixaanka loo dejiyay loona dhisay aysan ahayn natiijo qof go'aan ka gaaray wax ugu muhiimsan waaye in shakhsi ama macallin uusan go'aan ka gaarin natiijadaada ay ku timaado nidaamka la dejiyay oo loo dejiyay in imtixaamaadka lagu saxo inuu wixii ka soo baxo aad ku heshid waana wax qof kasta oo ku qanci karo marka aad fiirisid habka kormeerka habka sixitaanka habka hubinta intaba runtii waxaa ka muuqatay mas'uuliyad oo aan isdhihi karo ku dayasho mudan dhiirigelin mudan haddana bulshada rayidkana aan xooga saari doono inaan gacan ka siino ama aan u qoreyno haddii aan la yiraahdo gobolka Banaadir nidaamka wax ku wado waana wax aad iyo aad oo lagu farxo runtii anagana aad noo dhiirigeliyay waan u hambalyeynaa maaragta waxaan rajeynayaa ardayda inay natiijadooda ay noqoto mid lagu wada qanci karo wax badan oo maaragta wax ka tari doono waxbarashada gobolka Banaadir aad u mahadsantiin